السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha qaaliga dhamaantiin waa idin salaamay seetihiin caafimaadkiina waa walaashiin Farxiyo Ciro Janal kaaga daawanaysaan waa Farxiyo Ciro Janal kusoo dhawaada maanta waxaa idin wadaa sheeko yar sheekadan sidaan u dhacday gabadhay ahayd waxay ka baratay social media waxay ka baratay wiilkii muddo yar markay isla socdeen habeenada ka mid ah waxay tageen restaurantiga ayagoo wax yar joogo gabadhan waxay dareentay dawaqaad waxay dhahday ani meeshaan ma fadhi kari xaafadeyda inaan aado u baahanahay bas wiilkii wuu soo waday xaafadii oo keenay kadibna way roonaatay intay wadadii soo socdeen way ka yaraatay dawaqaadii bas xoogaa markay roonaatay haddana mar labaad haddana way dareentay bas waxay dhahday ani ma fadhi kari ee dhahday xoogaa madaxaas iga dawaqaadna waa dareemoyaahe waxay dhahday iska bax ani inaan iska seexdaa u baahanahay bas wiilkii wuu baxay markuu baxay gaariga furihiisa hor u qaatay miiska oo ka qaatay furaha gaariga bas gabadhan albaabadeeda gudaha way xirxiratay wiilkiina wuu baxay bas albaabkii gabadhan markii albaabadeeda ay xirxiratay way iska jiifatay goor dambe ay kasoo kacday shanqar maqle marka oo saaid oo dhanka jikada ka imaanayso bas way cabsatay albaabkeeda maysa furin armaajaday gashay bas waxay wacday askartay wacday waxay dhahday shanqar saaid maqlooyaa waxay dhahday waana cabsanooyaa bas askartu waxay dhaheen okay leenka taleefanka hadaminay dhaheen toos ugu jir leenka xaafaday imaadeen markay xaafadii imaadeen waxay dhaheen gurigaadu wuu xiran yahay shanqarta muqta inaad maqlooysidee dhaheen waxay tiri haa dhahda waa maqlooyaa dhahda shanqarta dhanka jikada xageedan iiga imaanay bas waxay dhaheen okay albaabka wuu xiran yahay albaabka marka waxay dhahda amara u qabtiin soo jabiya askarta ma iska soo gali karaan guriga amba ma iska soo jabi karaan ayagoo albaabkii way amartay in la soo jabiyo kadibna way soo jabiyeen way soo galeen markay soo galeen meeshaan ninaa loogu imaaday ninkii qabteen gabadhii marka waxay ku dhaheen ammaanaad tahay kasoo bax guriga bas way soo baxday gabadha qaracan hadday aragta waaba ninkii oo ayada baranaysay taqiina caawdhan soo joogeen bas ninkii waa la wareystay maxaa la dhahay see guriga kusoo gashay maxaas meeshaan ku keenay wuxuu dhahay sidii markii si sax u sheegay ninkan waaba nin dilaa wuxuu dhahay ani gabadhan inaan dilaan barago dad kalena hore usoo dilay bas gaariga furaha uu qaadanayay kiisa ma ahayn keedoo ahay darteed oona kusoo galay guriga jikadana wuxuu ka haayay midyaalo afaysanayay wuxuu jikada oo shanqarta ayada maqlaysay waxay ahayd midyaalka oo afaysanayay ee kusoo kacday awalba si inay dhaqso soo kacdo ma rabin wuxuu rabay in ay sii jiifto sababtoo awalba kaniiniyaal u qasay ilaa restaurantigana kaniiniyaalka u qasayay marka ninkina sidaasaa lagu qabtay gabadhina sidaasay ku badbaaday sheekadana meeshaasay ku dhamaatay haddii aad ka hesheen like-ta iyo share-ta iyo subscribe-ka dhankiina waaye intaan kusoo gabagabeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu